xilligii Umar ibn al-Khattab saxaabadana ay noolaayeen futuuxaad badanna la helay waxa weeye duruuftoodii aad bay isu bedeshay ragu madax bay noqdeen Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ay noo iman doontaa wuxuu waxaan garanayaa wuxuu saarkay maalin isagoo bada saaba oo magaalo ka talinaya ayuunba wuxuu doonay inuu waxa weeye sandaarsada ayuu doonay dabeedna wuxuu la soo baxay jeebka kala soo baxay mindiil laga sameeyay cudbi laga sameeyay ama kataal laga sameeyay qutun laga sameeyay quality-geedu fiican oo aan la xidhanayn laakiin la iskaga biinay duufka la iskaga biinay dabeedna isagoo iska marinayo iskaga biinaya ayuu isxasuusta wuxuu leeyahay Abu Hurayra yatamakhadu fil kataal warmanikii Abu Hurayra aan ogaa baduufka hadda iskaga biinaya maraq qotana oo qutni laga sameeyay iskaga biinay dabeedna qisadiisu ka sheekay wuxuu waxaan xasuustaa anigoo waxa weeye intaan gaajo awgeed sooxo dadku ay imalayaan inaan waashay ama sooxdaba inaan qabo wama bi illa al-ju' gaajo mooyane wax kale aan igu sugnay maantana xaalkaygu halkaas u maray yaani xilligaas marada noocaas inuu kullu bisto ma awoodin iska dhaaf inuu duuf iskaga biiyo waxa weeye ma awoodi duruuf badan baa isbedeshay waxa kamid ah Abi Mas'ud al-Ansari markuu doonayay inuu wax sadaqadaysto xilligaas waxa weeye waa soo xamaalay saacabka uu maanta ba ku xamaalay ayuu sadaqa u bixinay macallu shaahidku waxa uu yahay xamaalkii qofku inuu gala inay banaan tahay waa ujratu amal waxa lagu oranayaa shaygan ii qaado halka iige ama waxa lagu leeyahay bil baa lagu leeyahay ama amal baa lagu leeyahay ama gelin baa lagu leeyahay ama maalin baa lagu leeyahay ama hawsha inta aad dhameynayso mushqaayad inaad ka qaadataa waa banaan tahay qofku wuxuu shaqaystay inuu sadaqadaystana laga faa'iido